السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إقرأ هذا معناها لايف كان ويقول عسوب يهي إسلام مركانا وحبا يسوي ويقول حجليه ويقص قصة بلايا كل عاد مركا تيهرن وارمي مركا سوق دول أهرمات بحر كائنات كتا تابتر رباه مد كواد أو دور الشدي سومالي لان أو أن روينا هم بليهرت ودرو هالكان مدن عرّو وآد يا آد أن وهم بليين هذا الشعب كصوماليات ميلان شوق نبأ مدنانتي دجنانتي تناسلكي وسميي ونين خير كيس أو أن وحبر دارين ولبا الشعب كنا عي أو إسبدل لجره بي ودن كأنه كرعه أو حوق أول بأسكري أها أو الدولة دي حسوتش تبيي وعن شورتي الدوينة وحكو صوبرتي أو الدين لقول لي هي نين كدين تلقول لي هي والشعب كصوماليات هبرتي يعني يقدر يسي راس كمبوني راس عسير عن شورته وحلقو صوبري abaalkii lagu lahaana ka dhigay inuu Soomaali inta burburiyo qabiil u adeegsado uu qoqob ku rido maalin baqsi kala dhantaalo haddana uu beeshi raa'is xaq uu jeegaan iyo qabiilo iyo heeray habar jecel iyo ay arintii maaragta ay ku soo aruurtay horta waxaan ilaahay mahadiisa in dhalinyarada Soomaaliyeed oo waliba kuwa Somaliland ay maanta arkayaan dhalinyartii yaryarka ahayd ee ku dhalatay xilligii qaxa oo ama aan garaadsan ama xilliga dhexdiisa dhashay oo la cabsiyay waxa beenta oo taalada beenta loo dhoodhoobay oo fikirka beenta la cabsiyay waa ilaahay mahadi horta inay maantay indhahooda wax ku arkaan aqlina ay leeyihiin yaa ilaahay mahadiisa been luga badan ma leh ay ku socoto waa un soo dhici waa mana dheeraynayso wixii waa halaabay balaaya dhexda u fadhido mar walba raal ahaad uu googo ayaa maxaa u malaynaya internetka xaqiisa problem ka jira taasana keenaysa marka waxa ilaahay mahadiisa horta in dhalinyaradii Somaliland maanta ama kulmiyaha la socdeen oo maaragtay iyagu maanta dhinaca ha ahaadeen ama dhinaca kale oo maaragtay xaqdarrada badan laga galay ha ahaadeen laakiin kan maanta xaqdarrada galay wuu garan karaa oo uu ka fakarayaa in bari asna laga gali karo maanta hadduu watana bari in laga wadan karo ayuu qiyaasayaa aqliga ma la'aan taasi waxay tusaysaa dhalinyaradoo dhan indhahooda ay furaysaa in dalkan dadkii soo jabjabiyay iyo horjoogayaashii ay yihiin waxa hortaagan wixii loo sheegan ay been raad aan lahayn ay ahayd taariikhda markay akhriyaan way arkayaan dawladdii dhexe wanaagii ay ummadeeda u samaysay heerkii ay taagnaayeen Soomaaliya meeshay maraysay waana laga cabir qaadan karaa hadday intaas sii jiri lahayd maanta meeshay joogi lahayd waa wax laga cabir qaadan karo taa iyada ah ayaa waxay sheegaysaa horta barasho ugu ku kalifaysa dhalinyaro badan oo cabsanayd Somaliland iyo muqaddas weeye maanta wax kale ay cabsan yihiin ana 100% I doubt that waan huba maxaa yeelay beentii la dhoodhoobay dimuqraadiyada beenta lagu halhayn oo beenta ahayd oo bulxaftada ahayd way soo afjarantay waxay ku soo afjarantay maxay ahayd dulmigii lagu sameeyay mudane ciro iyo xisbiga wadani oo ahaa xisbi isbedel doona mujtamaca u soo baxeen aad ka nihina ku daawan karo qof walbana arkayay mar haddii ay muujiyaan shacabku isbedel doontaas inay isbedel doonayaan waxay ahayd cid isbedel in lagu sameeyo maamulka iyo madaxda sare madaxtooyada si dadku u aaminaan Soomaalinimada la sheegay Somaliland la sheegay si loo aamino waa in la arkaa isbedel markay u baahdaan shacabku inay isbedelka helayaan waa in loo muujiyaa haddaad tusti laakiin dictatornimo inaad dirto shalad ka cabanaysay maanta adaa ku dhaqmaya dee waxaad sheegaysaa been hadaba aduun baa dee contradictions ku samaynaya aduun baa ismucaaradayo shalay baad leedahay waxba dictatori baan ridnay iyo been baad sheegaysay dan laadahay dantii aad lahayd baana weli leedahay tiyaadii baad ku taagan tahay qaran dhanna waad ku soo baabi'isay waanad ku soo dumiseen horta kaasaan ka leeyahay askariga meesha qabsaday oo murderka allahna ummadda inteeda kale ku nabadiya laakiin waxaan aad hambaliyo ugu dirayaa mudane ciro iyo xisbiga wadani iyo dhammaan shacabka Somaliland oo muujiyay deganaansho oo muujiyay tanaasul ninka tanaasulka suubiyay waan garan karaa shacabka maanta waxay dareemayaan in badan oo kamid ah specialist xisbigaas ah wallahi qaar baa waxay leeyahay halays inaan waxba yay kala dambayna dhiiga dhagta in la soo darar raba laakiin si fiican buu u qodbeeyay shacabkuna inta kale ay ku naaloonayeen ay Soomaali dheeraayeenba waxay ahayd waa nabadgelyadaas waxaan rajaynaynaa inay sideeda ku sii hayaan waa ay safaraha ka bixin midda kalena laakiin waxa barasho wanaagsan ah
oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in shacabkii somaliland waa muqadas inay meesha ka baxayso aysan ku jiraynin sababta maxaad muqadas gaara ka dhigay kanba waa soomaali kana waa walaalkaaye labadaba walaalahay maxaa kan kuusoo kamariyey hadduusan waxba kuu ogolayn muxuu kaaga duwan yahay kan kii wax kuu hayay oo dowladda ahayd oo rasmiga ahayd oo maskiinka iyo ardayga iyo dhakhtarka firiga ku siinayo iskoolka firiga ku siinayay oo maskiinkaaga maaragtay meel dayacan uusan marayn ardaygaaga uusan tahriibaynin baad iska soo dumisay maxaad ku bedelatay mid maalinba meel qabyaaladu ilaa ma dagmaato waa qurin moogta maalinba laynba waa laabkaas basasho lagu sheego jeegaan ba isu bedesha habar jecla isu bedelaysa jifa kale isu bedelaysa dee waa ma dhammaato inkaan qabto marka horta taa inay ka baraarugaan oo ay dhalinyarada reer somaliland ay soomaalinimo qabiil ka sokayo horta inaysa sheegan ban yaan ilaahay uga rajaynaya inayna gaaraan limidkaas qaarna way ka soo bixeen haddaba way joogaan qaar badan oo soomaalinimo ku eg marka xayndaabka maafiyada oo tuugada oo qabyaalada oo ninka daniistaha uu ku duulo inay isaga soo baxaan oo fakarkooda bedelaan lagu shubay beenta oo runta ay qaataan baan halka horta message-kan u marinaya taasi waa dhalinyarada reer somaliland waa midaan leeyahay iyo doorashadii waxaan ka dhahayo oon ugu tahniideeya ninka ciro ah iyo sida u tanaasulay xisbigaasi ilaahay khayr badan ha siiyo midda kale oon rabo inaan halkan wax ka dhaxo waxa weeye waa mucaaradka soomaalida oo hadda maalinka dhawood oo mahad odawaah uu ka hadlaya qalbi dhagax waxa su-aalaha caruurta xataa garanayso dadka aan ka xishoonayn baan anigu horta la yaabaa waa dad aan ka xishoonayn wax caruurtu garanayso islaamuhu yararkaa iyo caruurtu ay garanayaan baanay ka xishoonayn oo ah waxaanay ka xishoonayn ninkuu shalay dilayey oo xirayey oo maaragtay markuu asagu dowladda ahaa uu lahaa waa argagixiso oo asagu ku taargad garayn ku level garaynayay ayuu maanta markuu xil waayay wuxuu leeyahay waa muwaadin iyo in la xiro iyo in la qabto ma ahayn is that make sense wax macno samaynayo oo bini'aadan ka dhaadhici kara yaa lala yimaada haddaad sheegayso awalba mucaaradka soomaalidu mucaarad qashin ah oo inay wax dumiyaan maaha aan wax dhisin weeye oo lugooyo ku korayo wax qashin ka dhergay oo aaminsan hadday corruptionkaas waayaan inaysan noolaanayn wallaahi bilaahi tallaahi waad dhimanaysaan corruptionku waa dhammaanaya haddaad corruptionka aad u qabtaan inay naftiina ku xiran tahay dee ama waad naxdin baad la dhimanaysaan ama idinkoo nool baad arki doontaan waxaad oran doontaan alla maxaan mucaaradka waaga isaga dayn weyn ilaa waa noolaan lahayne aaminaada kalsoonida idinka maqan sababtoo dhac iyo boob iyo hanti dadow iyo waxaasaad ku korteen oo aad maaratahay gabigiinima maarata aad ku barbaarteen taasaana waxay sheegaysaa taasaa kalifaysa inaad maaragtay aad macnaha kalsoonida idinka maqnaato waa kalsoonida idinka maqan inaad noolaan kartaan ma aaminsan inaad wax dhacdaan iyo wax boobtaan iyo aad daba dhilif noqotaan ma ahane inaad qarannimada ka hor timaadaan ma ahane uma taqaan inaad qaran ku dhex noolaan kartaan ma qabtiin aqoonteeda iyo kalsoonideedana ma qabtaan id wax kula soo bixi lahaydeen taasi waa midda kalena xagga federaalka soomaalida waa dad koobi kaarira waa waxbay koobiyeeyaan laakiin kama fiirsadaan wax ay koobiyeeyaan kama fiirsadaanoo waxaanay ka fiirsanin for example federaalka hadda maxaa weeye maamul goboleedyada ninka noogu cilmiga badan maraykanku ka tegay waa ninka puntland haysta wuxuu la socdaa siyaasadda maraykanka ayuu wax ka qaataa siyaasadda maraykanka meesha ugu xumayd baan wax ka qaatay ilaahay qadarkiisa wuxuu arkay uu nimankan maraykanka ah oo federaalka ah oo gobolada ah oo madaxweynaha afka goosanayo oo wuxuu yimaadaba wuxuu haba ka hor imaanayo oo unba ninkan horta ma sii daadigin oo ma fahmin warniyo waxa aad macnaha niyo waxa aad macnaha dadkan oo aad isticmaalayso ama aad ku mucaaradayso dawladda wax dastuuriya miya dastuur qoran ma haysataan dastuurkeenu meeqa jir weeye ma dastuur dhammaystiran ba ma wax la isku afgartay ba arrinta noocaasa kale waxaad ka arkaysaa macnaheedu ninkani wax mucaarad ma ahana iyo maraykan ba gobol ba mucaaraday ninka la yiraahdo maaragtay Trump ma ahana iyo madaxweyne nidaamka u mucaaradeen ma ninkani kama dhargsana sidaan u jeedo dadkani waxay leeyihiin dastuur gaamuray oo dhowr boqol sano jira oo marjico loo laabto dad iska soo haada ma ahan waxooda iyagoo soo bogtay oo ka soo baaraan degay ay horta maaragtay yay dad mucaaradaan oo madaxweyne mucaaradaan oo ra'yi mucaarad waxay ku mucaaradeen waa wax qoran oo dastuuriya
oo xal u ah dalka iyo dadka wax xal u ah way waxay iyagu mucaaradayaan oo ay ka ilaalinayaan waxaan dan u ahayn ninkii la soo galay ayay ka qabtaan madaxweyne maalinkaas habka soo galay xukunka oo indhiya dhagala oo isagu maaragtay ujeedooyin wata ayay ka qabtaan waxyaabaha aan dalka iyo dadka dan u ahayn dastuurkana aan waafaqsanayn bay ka qabtaan laakiin annagu sida laysaga celiyo dowladda dhexe sida laysaga celiyo dowladda dhexe oo gobolladani ay maaragtay dowladda dhexe ula dagaalahayn dagaalka bas uu ka soo qaatay waa dagaali karaa bas way sheekadiisu laakiin dagaalkani ma dagaal dastuuriyaha ma dastuurkani ma dhan yahay dagaal lagu maaragtay wax dhisahaya miya ma wax duminahaya isma weydiiyaan soomaalidana baaquli daboolan unbaa qolo walba loo geeyaa nin danliista oo dan wata danley ah oo dan leh ayaa baaquli daboolan u geeya markaasuu dhaha warqaada maba soo jeestaanba waa la ordayaan maxaa ku jira iyo dabalka inay faydaan iyo waa tii la eeda inaan la fiirinayn qaad baa xagee geeya hay ree hebel kusoo dhufo u gee haye waa intaasaa naqaanaa shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan uga digahayaa nimanka maamul goboleedyada ah oo horjoogayaasha inay si dhiible ula xisaabtamaan shacab walba aqoon-yahan buu leeyahay dhalinyaruu leeyahay waxgarad buu leeyahay indhahana mala dastuurkana waa wada fahmayaan waxa qumanaya waxa saxsana dadku waa wada fahmayaan horjoogayaasha ku takrifalanaya rabitaanka iyo maaragtay qarannimada ummadda Soomaaliyeed waa in la iska qabtaa khaladkoodana mid walba kan ugu dhow waa inuu majaha ku dhagaa kuwa ugu dhow waa inay qabtaan oo majaha ku dhagaan sababta qofka kale markuu dabco inuu qabto qabiil baa lagu soo haadaya marka in qabiilkiisa qabtaa ilaa qabiilkiisa dad wax garada iyo waxa ka wada buuxa dad mutacallim dad wadankan iyo dadkan iyo dalkanba u danaynaya ay diinta yaa ka buuxa qabiil walba oo kuma raacayaan daalnimada iyo xumaanta iyo kuma raacayaan 90% kuma raacayaan nin walba afar tuug buu wataa oo xoogaa lacaga ama siiyo ama xoogaa qabyaalad ku daba socda ama ku daba socda xisbi ahaan ama ku daba socdo shilinkiisa u baxsanayo maarta lagu wardeynayo sababo uu daraadood laakiin shacabka waxa uu hiilinaya waa qarannimankii u hiiliya baana maartay yaa uu succeed noqonayo oo faa'iidaya marka sidaa daraadeed dadka horta mucaaradka dawladda ku ah mucaaradku markuu sharcigu degsamo oo baarlamaan macnaa la ansixiyo dastuurka oo waliba dastuurka laftigiisa la turxaan bixiyo oo lagu turxaan bixiyo waliba laga turxaan bixiyo 4.5 iyo iyo anaa weyn iyo qashin in laga turxaan bixiyo horta u baahan yahay sababtu wixii xaraan ku dhismaahi xalaal ma dhalaan waligiisna saasaf madaxa la isula jiraya waa in lagu saleeyaa intiisa badan waa in dastuurka lagu shareeyaa shariicada islaamka waa in lagu saleeyaa sababtoo ayadan lama dhaafaan noo noqonaysa qof walbana wuu ku khasban yahay inuu ku qanco 4.5 waa xaqdarana laguma qanco qofna ma qanco kan ugu wax kasta u badi wallahu saqancayn wax kasta si ma qancayo kaad ka yaraysaana ma qancayo kaad u badisaana ma qancayo never ever maalin walba waa tabasha taagan maadaama marka sida arrintu tahay waa in macnaha lagu dadaalaa oo dadkan u xil saaran sharci dejintu aad iyo aad inay u turxaan bixiyaan baan ilaahay ka rajaynaynaa una soo bandhigaan dadka ay matalaan sharciga laftigiisa waa in wood loo qaadaa waa in laga doodaa macnaha qodobada aan munaasibka ahayn oo dad macnaha danaystaha ay ku wataan dad danaystaha ay macnaha jeebkooda ku wataan ku danaysanayaan danahooda kaliya ay ku fiirsanayaan danlaydan lagu badanay danlayda allaha naga qabto shacabkuna ha arko hana arkaan dhahooda ku arkaan hana iska qabtaan danlayda runta ha loo sheego danlayda dalkan daashatay danlay baa daashatay nin walba dan leeyahay danlayda waa in shacabka Soomaaliyeed ay u istaagaan indhahoodana furaan iskana qabtaan runta taas weeye danlayda haddaad ku dhaafto waa in adeerka ku danayn mahayo bari wallahi ku aqoon ku asaga maarta intuu shirkiisa awrkiisa ku kacsanayo ku haysanaya ama siyaasad ku wato oo meel kale ka yimid adoo wada qabiil ugu helisay wallahi bari kuugu helinay oo billahi iskuugu helinay waxa weydiinaya Soomaalida 27 sano qabiil la isku leeynay carwaayo qabiilkiisii ninka horjoogaha oo qabiilkiisii najixiyay oo ay ka badbaadeen maxay tahriib oo ay qaxooti ka badbaadeen
oo ay gaajo ka badbaadeen oo ay abaar ka badbaadeen ha soo istaaga bannaanka waa boqraynaaye taalaana u dhisaynaaye hala keeno nin walba markuu dan leeyahay yuu tol beelay dhahaa tol beelay baa lagu dadumiyey dowladdan lagu jajabiyey 27 sanona ummad dhiiggeeda lagu banaystay iyo maxay oo lagu silciyey tol beelay aan meelay gaarta la'ayn oo meelay ku dhamaata aan lahayn oo af iyo mijo iyo madax mid aan lahayn kama waantowna miya oo shacabku dowladdu waxay danteeda horta dowladsiyadeeda dan iyo u haysaa ninkii tabar yar bay dowladdu dad u tahay oo xoog u tahay oo indha u tahay oo cadaalad u tahay oo waxtar u tahay ninaan dhakhtar aadi karin bay dhakhtar u samaynaysaa midaan iskool iska bixin karin bay iskool free siinaysaa mid aan maxay tahay isdifaaci karin bay difaacaysaa dowladdu intaasay muhiimadeedu tahay marka dan yartooy shacabka u istaaga dowladnimada oo dowladda garab istaaga oo nimankan mucaaradka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan maqli jiray gaaladii baa maxaa ka soo bixi jiray niman muslim ah oo macnaha ahliyayaa baa ka soo baxay waxaan rajaynaynaa nimanka muxunka danleyda oo mucaaradka wiilashooda inay wiilal fiican ka soo baxaan oo wadaniyiil ah oo aabbahood confronting ku sameeya hor istaago yidhaahdaa waad ku qaldantaa aabe yeeli mayno tan danooguma jirto iimaadan danayn ilmahaygana umaadan danayn ciribtayda damar kama naxaysid mana kaa yeelayo baan ilaahay ka rajaynaynaa inay ku soo baxaan wiilashooda inay ka soo baxaan qaar noocaasa yaan ilaahay ka rajaynay oo soomaali wadaninimo da ku quweeya iyo midnimada wiilashooda iyo tagoogtooda inay ka soo baxaan baa ilaahay ka rajaynayna oo dhallinyaradoodu ay hor istaagaan nimanka danleyda ah oo soomaaliya iyo qarannimadeeda hor taagan sabab badanna ku hor taagan iyo dana gaaro ay leeyihiin ama mid diiniya iyo fikir dawan ha noqoto ama ha noqoto mid shisheeye uu adeeg iyo caloosh shaqaystinimo ha noqoto sabab kastaba ha noqotee nimanka ku hor taagan qarannimada soomaaliya dana gaara oo aan soomaaliya anficin iyo shacabka iyo danyarteeda anficin ilaahayna ha naga qabto ilaahayna waxaan ka rajaynaa dhallinyaradooda iyo kuwa dadka u xigaaba inay naga qabtaan marka soomaaliya qabyaalada waa ha ka daasho muhiimadda ugu dambaysa waxa weeye soomaaliya ha ka buskoota qabyaalad qabiilkeeda ugu dambeeya oo ay noqotaana horta qabiilkeeda u horeeya waa islaam keeda labaadna waa soomaali wixii intaa dhaafsiisana waa bullshit ha iska iloobaan sababto ma dhammaato waxba kuma helayaan xaqiiqduna waa midaas marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ay soomaali midooda gartaan dhallinyaradana in wax loo caymiyo oo ay mustaqbalka ay helaan meel ay ku nastaan carruurtoodana ay ku dhaxal muhiima oo dhaxal gala uga tagaan iyo wax la taaban karo nimankan danleyda oo dalkan daashaday ciday doonaan ha u dhasheen gobolkay doonaan ha joogeen shacabka ka soo jeeda oo waliba goboladaas jooga oo waliba ka dhashay dadkaas naga qabta ilaahay baa idinku dhaarshay qabta taariikhdaa idin qoraysa ilaahay baana ajar iyo xasanaad idinka siinay ila waa danley aan cidna u danaynaynin marka soomaaliya ha israacdo nabad iyo guul baan ilaahay uga rajaynayaa ilaahay waxaan uga rajaynayaa qabyaalada iyo qurunka iyo qoqobka maxay to ay tuugto iyo nimanka danleyda ah ay ka gadeen maskaxda uga shubeen afrikaan markii laga soo tago soomaali kalena lama sheego qabiil kalena looma yaqaano adduunku wuxuu noo yaqaan aan noqono ilaa kolay meel kasta oon tagno annagunbaa iskala sheegna cidna jirto intaa ha la fahmo taa ha idinka dhacdo taana aan u midowno assalaamu calaykum iga dhaaf wixii aan qaadan